miyay jeceshahay iyadu 6 calaamadood oo ku caddaynaya jacaylka xaggeeda ku yaala adiga? ma ku adag tahay inaad fahanto waxa ay dhab ahaan rabto iyada? maxay haysaa dareen noocee ah ay ku leedahay adiga? runtii ma ku jeceshahay? miyaad mar walba dareentaa inay ku siinayso calaamado isku dhafan? haddaba muuqaalkan ayaan kula wadaagi doonaa 6 arrimood aan bilowna saaxiibayaal. Number 1, waxay jeceshahay inay noqoto saaxiibadaada ugu fiican. ahaanshaha saaxiibo wanaagsan waa wejiga koowaad ee jacaylka. waad isku halayn kartaa iyada oo indhahaagu xidhan yihiin adiga. waad og tahay inay mar kasta adiga kuu joogto markii aad dareento hoos u dhac ama aad u baahan tahay garab aad ku tiirsato. waxaad jeclaan doontaa inaad la wadaagto wixii sir ah ama sheeko caadi ah. Number 2, waxay mar kasta qorsheynaysaa inay waqti kula qaadato adiga. jacaylka iyo waqtigu way is wada galaan xidhiidh kasta. waqti ku qaadashada waqtiga tayada leh waa qasab. haddii aanad waqti siinin midba midka kale, sidee baad isaga hubin kartaa qof kale? Number 3, waxay doonaysaa la talintaada iyo talooyinkaaga qiimaha leh. calaamadaha lagu garto wadajirka dhibaatada waxay had iyo jeer hubisaa inay wax kaa weydiiso ra'yigaaga. waxay ku tusin doontaa calaamado muujinaya inay fikrahaaga ay iyada wax badani u quseeyaan. waxay kula wadaagaysaa arrin kasta oo adiga kugu saabsan. waxay raadinaysaa hagitaankaaga. waxay jeceshahay markaad xagto, markaad u soo jeediso wax u saxan ama ka khaldan iyada. way jeceshahay markaad u muujiso xiisaha iyada. waxay rabtaa inaad ku celiso adoo qiimeynaya ra'yigeeda. Number 4, waxay ku dadaashaa inay u ekaato qof wanaagsan oo qurux badan. isku dayga dheeriga ah waa astaamo lagu doonayo in lagaaga dhigo qof khaas ah. waxay had iyo jeer maskaxda ku haysaa nooca dharkaad jeceshahay ama kaa farxin kara adiga. waxay ku dadaashaa inay si qurux badan adiga uun ku ahaato, maxaa yeelay markaad qadariso waxay ku jirtaa daruuro qurux badan. waxay jeceshahay markaad ku ammaanto ama markaad indhaha ka qaadi karin. hayloobin, waxay keliya isku dayaysaa inay noqoto boqoradaada. Number 5, waxay rabtaa inay ogaato wax walba adiga kugu saabsan. waxay jeceshahay inay ku dhagaysato. waxay rabtaa inay wax ka ogaato qoyskaaga, asxaabtaada, shaqadaada, xasuustaada carruurnimadaada, waxyaabaha aad ka u jeceshahay, waxyaabaha aad neceb tahay, danahaaga, hibooyinkaaga iyo wax walba adiga kugu saabsan aad bay u jeceshahay. iyo aamin, helitaanka gabadha noocaas ahi waa barako. miyaanay calaamadahaasi kugu fillayn in lagu ogaado in gabadhu I hope inaad waxaan ka fahantay muuqaalkan. la soco muuqaaladeena kale xiisaha badan insha Allah. antilan muuqaalkaasi ka gaari doono saaxiibayaal, waxaan idin leeyahay nabadgelyo.